السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها قالي وجنالك كحرمي بأجوكتين وأدين سلامي ولكن سعدي عبد الله جنالك دامني سعد وشكو كان جلال وهرين هدا تكو عصبتاي سود وسبسكرايب نوتا وكم بريكركمو هدان لجوجت لايك شير كومنت ما انتو حينو وضا عيش شوارما إن شاء الله هدو حاسة بيسانينا ديجاجي أما دورة جيركا استعمالنا حوغاير وحن كدراي وسليده waxaan kaloo haystaa basal intaana raasi fiican inaan usoo shiilo maasha Allah shawarmada aad u macaan badan tahay ceeshkina wuu noo qasan yahay hadda wuu noo qamiirayaa waxaan sugaynaa ilaa ay xogaa inooga soo shiilanta basasha saliidan iska yareey waayo waxaa laga rabaa doorada inay ku angagto amba hilibka markaas aad ku samaysanaysid hilib yar oo qalalan la rabaa hadda waxaan soo diyaarsanaynaa tuun hal xabo tuun aan rabaa inaan soo jarjaro si yar yar loo soo jarjaraa insha Allah waayo doorada waxay u baahan tahay caraf badan marka saas darteed hal xabo tuun ku dalacaneynaa basasha iyo tuuntii waa isla shiileynaa marka maasha Allah basasha iyo tuunta marka la isla shiilaa caraf way ka caraf badan tahay tuunta sida caadiga loogu daraayo kadib waxaan kusoo darsanaynaa digaagii noo diyaarsanaa si yar yarna waa usoo jarjaray si fiican waa usoo dhaqay liin dhanaan iyo qalaan kusoo dhaqay kadib waxaa la rabaa si fiican inaa yani isku dhex gelisid basasha iyo toontii saliidii iyo digaagii carafta dhan waxaa la rabaa jirka inay ka gasho kadib dabka waa u gaabinaynaa waana daboolanaynaa asxaabi doorada waqtina waa kusoo laabtay cabaara ka maqnaa maasha Allah biyo badanna way dhashay ani wax biyo kuma taabanin intaanu biyo ayada dhashay doorada maasha Allah qoyaan badan ay waliba dhashay hadda xogaa yar waa ka mashquulay laakiin biyo badan ay lahayd maasha Allah hadda waxaan ku darsanaynaa maaji iyo xabaajiyaal iyo waxaas ku daraynaa caraf maraq digaagan isticmaalay maraq digaaga khudaarta waaye dhanaan badan ma lahan maasha Allah wuuna carfaa kasaa isticmaalaynaa hal qaado haddaad dhanaan badan jeceshahay waa ka badsan kartaa laakiin aniga dhanaanka badan ma rabo waxaan kaloo ku darsanaynaa filfil filfisha ayadan xogaa isticmaalaynaa kadib si fiican isku dhex gelinay haddii aad isleedahay hilibka ama waxoogaa kaa adag yahay biyo yar ku darso haddii taas uu ku anfacayan qoyaankaas uu dhalay inaad ku karsatidna waa ku karsan kartaa jooskada iskale laakiin aniga hadda waxaan ku darayaa biyo si fiican inaan u kariyaa rabaa hilibka waxaa fiican inay xitaa ilmaha yaryarka ay cuni karaan oo aad kaaga bislaado هاد wax kale kuma darin waa filfil iyo maraq digaaga oo khudaarta biyo yar ku dareynaa biyaha markaa ku dartid cabaar ku saarnaana markuu ku karo waxaan ku dhamaa maasha Allah waaye waxaan ku daray dhagayare
dhagayare ama qalinfur labadoodaba waa la dhahaa. Markuu ku carfinaa qalinfurka biyahaas ku darsanaynaa, waa daboolanaynaa insha Allah. Markuu noo soo karo aan ku soo laabanaynaa. asxaabi waa kana qoyaankii uu soo guursaday, wax yar ku jira hadeer. waxaan ka bixinaynaa labadii xabo oo ku daray dhagayaraha ahaa. bis waa inta uga baahnaa waa ka helay. wax badan kuma darin, laba xabo ku daray. hadda waxaan ku daraynaa xabaashiyo isku dardar. qoyaankan hadduu guursado bis wax kale uma celinayno, wuu karsan yahay si fiican waliba u karay. waxaan ku daray xogaa yar oo xabaashi isku dardare. waxaan kale ku darayaa heel shiidan isagana wax yar, wax kale uma celinayno. iyo wax yar oo paprika. paprikadan xogaa yar ka isticmaalaynaa. waxaan kaloo haystaa karooto la soo hoolay. wax kale oo u baahan yahay malahan. waxaan sugaynaa ilaa uu noogu soo guursado bas. waan qalajinaynaa si fiican la rabo inaad u qalajisid. way shawarmada wax qoyaan looma rabo. marka insha Allah asxaabay digaageeni ama chickenka ama doorada maruu qof walba si u yaqaanaa intaan inooga eg tahay. intii nooga qalasho bisan sugaynaa, dabka ku hayn doonaa insha Allah. haddana waxaa sii bilaaban aan sii diyaarsanaynaa ceeshkii noo qamiirsanaa. asxaabay hadda waxa dabka ii saaran taabo. marka hore u soo duwaayay, marka insha Allah hal xabaa rabaa inaan idin tusiyo. ceeshka khamiir badan ani kuma darin, ma jecli inaan khamiir badan isticmaalo. marka ceeshka sameynaayo xogaa yar aan isticmaalay. waqti dheerna ma qaadanin, adiga markaan qasay ilaa iyo inta ii soo khamiiraysay waxaan maleynaa 30 daqiiqo camal ay ahayd. awalkeenii horena waan ka yaray khamiirka. ugu horeyn saana u sameynaynaa, xogaa waa soo kulkuleynaynaa, kadib saliid yar isticmaali doonaa. oo marka hore waxaa la rabaa markaas saatid wax yar markay ku qandacdo in haddana gedisid, kadib la saliid isticmaal. maasha Allah ceesh yaroo macaan badan oo qurux badan uu ku noqonaa. laakiin isla markaa saliid isticmaashid xogaa qaabdaro ka noqonaa. maasha Allah ujeedin ma soo furfuraayo. saas taa waqti badan aniga ma siinin, khamiir badanna ma isticmaalin. maasha Allah qasida bas ugu dadaal. hadaa qasida maasha Allah ka dhigto aad isku dhex gelisid wuxuu ku noqonayaa ceesh aan caadi ahayn oo jilcan oo xitaa maalmo ku yaari karo. hadii taqriiban aad samaysid galabtii oo kale hadaa samaysid casho aad u rabtid ilaa subaxdii waa ku quraacan kartaa. maasha Allah asoon waxba iska bedelin. insha Allah waa soo dhameynaynaa. markaa soo dhameyna ku soo laabanaynaa. asxaabay ceeshkii dhammaan waa soo wada dubay, waan soo dhameeyay. waa kana maraa ku soo duubay. maasha Allah ku dhahay jileec qurux. dab labaad xitaa ma u baahno, waayo ceeshka dii cad uu ka yahay. dab labaad uu ka tabaa markaa yani chickenka iyo waxa ku dhex samaysay khudaarta. laakiin ceeshka ma ugu talagalay inaan dab labaad aan u celinin. marka nala arka marka khudaartii aan soo sameynay iyo ceeshka iyo qaabka uu ku soo baxayo.
aniga mayonnaise ma isticmaalay waayo mayonnaise-ka aniga aad uma jecli mana xiiseeyo laakiin waxaan isticmaalaynaa basbaaskan dhalada ku jira kashafka xoogaa yar ka isticmaalaynaa dadka isku dooq maahan dad jecel mayonnaise inay ku darsadaan dadka qaarkood ma jeclo laakiin marka adiga gurigaada ku samaysanaysid jooskada iskale waxaa rabtid ku isticmaali kartaa mayonnaise taa haystid hataa ka jabahaysid hadaa xitaa haysanin xitaa waxa markaas ay haysatid bas isticmaal hadda waxaa mariyay basbaaski chickenka aan soo samaynay waaye waxaan kaloo had isticmaalaynaa baradho aan soo dubay waxaan kaloo haystaa basal iyo barbarooni oo warwareeg aan usoo jaray waxaa rabtid ku quruxsan kartaa waxaa jeceshahay markaas oo adigana aa cuni kartid oodna heli kartid aa isticmaalaysaa aniga intaan bes u baahanahay run ahaantii aadna u macaan maasha allah waxaan isticmaalayaa istakiin wax kale uma baahno waka ceesh shawaarmaheena insha allah hadan xabada labaad rabaa inaan idiin tusiyo xabadii ugu horreysay waa taa tan kale asxaabi haddii yani ceeshkaada si cadcadaan aa u samaysid ceeshka marka hore waxaa loo sameeyaa shawaarmaha cadcada loo dubaa kadib markii chickenka iyo qudaarta dhexdii ka dhigtid haddana dabka loo celiyaa taawada loo celiyaa kadib la soo gaduudiyaa taasna waa samaysan kartaa saan waa u samaysan kartaa labadooda sida aa rabtid laakiin howl fududayn haddaa rabtid saan le u samayso yaa howsheeda way fudud tahay waxaan ku dhahay ma ku daalaysid wayna macaan badan tahay macaana ku dhahay maasha allah lagama sheekeyn karo aniga saanaan jeclaa inaad u sameeyo maasha allah insha allah asxaabi xabada labaadna waa tan iidan nala arkaa maasha allah asxaabi waa kana markaas soo dhameeyay quruuxan ku dhaha cida cunto bas ka sheekeyn karto aad u macaan badan yahay inta haysata ilaahay u siyaadi inta haysanin allah siiyo maasha allah waay cashadeena maanta waa kana في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.